warar iyo waliba wacaalo tripel oo soo baxay ayaa sheegaya in laga yaabo in xaaladda dhinacyada Mareykanka iyo Iran ay isku bedesho gacan ka hadalka falkafoola ayadoo dhinaca kale la sheegay in ay ururka Hamas markii ugu horeysay iyaguna ay sheegeen in ay Iran ay u ballan qaaday inay ku soo dari doonto liiska in magaalada Qasa laga qaado cunaqabataynta iyo dagaalka laga joojiyo. Hafayeenka ururka Hamas Hazim Qasim ayaa ku tilmaamay dawladda dalkaasi Iran inay qaaday talaabooyin adag oo kamid ah booska ay ka taagan tahay nabadda oo ah in dadka reer Qasa lagu soo daro shuruudaha. Iran ayaa soo saartay warka madameyso ah in dhammaan loo baahan yahay in jiidaha dagaalka oo dhan la joojiyo oo la hakiyo. dhinaca kalena taliska ciidanka qalabka sida wadanka Iran ayaa sheegay in isku xirka amniga ka gees ilaa badda Indian Ocean ilaa inta laga gaarayo ay yiraahdeen bartamaha fog ee badda cas inay noqon doonto mid ay si ballaaran ay uga shaqeeyaan. tani waxay imaanaysaa iyadoo dhinaca kalena ay sii socoto dhowr talaabo oo waaweyn oo ay kamid ka tahay in dawladda Iran ay isku muujinayso awood ahaan si aad u ballaaran ay marka dambaysa ay u qaadanayso. boqortooyada Saudi Arabia ayaa soo dhaweysay barnaamijka ay dawladaha Turkiga iyo Sacuudiga wada sameeyaan doonaan oo ah isku xidhka jidka tareenka ee dhowr wadan oo caalam islaami dhex mari doona. tan oo loo arko in ay tahay istaraatiijiyadii ugu weyneed dhinaca dhaqaale laakiin ay daba socoto mid military markii ugu horeysay dalalkan ayaa isku soo dhawaanaya xilli ay dunida caalamkii kale ee reer galbeedka iyo caalam islaami ay kala fogaanayaan. ayay dawladda Sacuudiga waxay taageertay hadal hore uga soo yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gaadiidka ee dalka Turkiga waxayna sheegeen in barnaamijka khadka tareenka isku xidhi doona Sacuudiga wadamada ay kamid tahay Urdun Suuriya iyo dhanka kale ilaa iyo Turkiga uu noqon doono kii ugu ballaarnaa ee barnaamij wada shaqeyn ballaaran waxaana laga fikirayaa ayaa leeyahay sidoo kale in dalka Pakistan ilaa iyo Iran la isku xidho marka heshiiska nabad ay dhacdo. warar ay warbaahinta Hurfadhi Media Group ay ogaatay ayaa sheegay in qorshaha uu ku jiro qorshe ilaa iyo Pakistan ilaa iyo Iran Turkiga ilaa iyo Saudi Arabia la isku talaali doono la isku xiri doono. arrintan ayaana loo arkaa in isbedelka aadka u xoogan ee dunida iyadoo oo ay sii socoto dhanka kalena ay sii ballaaranayso baalay qorshayaasha dalalka reer galbeedka iyaguna ay ku kala tageen xilli uu sidoo kale u burburay heshiiskii military ee ugu weynaa ee u dhaxeeyay wadamada reer galbeedka gaar ahaan kuwa Talyaaniga wadamada Faransiiska iyo Jarmalka oo shalay ku kala kacay shirkii ugu dambeeyay uguna weynaa oo muujiyay xaalad la yaabkeeda wadata. mid kamid ah mas'uuliyiinta dalalka Faransiiska ayaa sheegay in uu gabi ahaanba xidigii dalalka reer galbeedka uu dhacay maadaama ayagu ay khilaafkoodu uu joogto noqday si joogto ah ay isku sii khilaafsan yihiin maalinta ka dambaysa halka sidoo kalena ay soconayaan baa leeyahay dhowr arrimood oo kala daran oo ku aadan baa layidhi isku soo dhawaanshaha iyo kala fogaanshaha dunida ka soconaya. isku soo dhawaanshaha wadamada caalam islaami ayaa tusaale u ah kala fogaanshahana wadamada reer galbeedka ayaa tusaale kale u ah waxayna tan ka dhigan tahay sida maalmuhu ay isku bedeleen xilli ay sii go'doomayso Israa'iil iyaduna oo dunidu inteedii kale ay ka dhaqaaqayso.